ee ku nool magaalada Marka ee gobolka Shabeellada Hoose deeqdan ayaa noqonaysa tii ugu horeysay tan iyo markii ay la wareegeen ciidamada dawladda Soomaaliya warkaasi waxa inoo haya wariyahayaga Awil Abukar deeqdan raashinka ee maanta la gaarsiiyay degmada Marka ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa ahayd mid ka timid dawladda dalka Cumaan gaar ahaan Suldaan Qaamuus iyadoona deeqdaasi la soo mariyay Sheekh Calamaye Charity Foundation deeqdani oo ka koobneed bur, bariis, sokor, saliid, baasto iyo timir iyo sidoo kale qalabka laga xirta kaneecada ayaa waxa horkacayay wasiir ku-xigeenkii hore wasaaradda maaliyadda Mukhtaar Sheekh Shute qaar kamid ah dadkii deeqdani la gaarsiiyay oo aan kula kulmay goobta ay ka socotay deeq bixinta ayaa waxay iga warameen siday u arkaan deeqdani maanta la gaarsiiyay waxaan u arkaa farxad oo weyn oo la karaameeyay shacabka bisha Ramadaan aniga waxaan joogaa magaalada Marka waxaan la i guddoonsiiyay timir saliid sokor digir bur baasto isinsiyeeri bariis ma haddaas ilaahay baa iska leh cidii noo soo dirtaa leh ilaahay ilaahay Allah no cafu kor Allah na dhamaantaan islaamka kor Allah ka dhigino soo bixiyeen waa u duceeyeen la heli ilugu hel meel Allah ko wala heli kon wala heli kan ku ilu hel maano he hadii nool fiinta way deeqa ma tii gaarsiinayay ma arkan maanta alxamdulillah rabbil alamin waa ku arbaahne taasoo ilaahay inoo keen wasiir ku-xigeenkii hore ee wasaaradda maaliyadda dawladda ku-meel gaarkeed ee Soomaaliya Mukhtaar Sheekh Shute oo horkacayay deeqda maanta la gaarsiiyay degmada Marka ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa iga warbixiyay deeqdani maanta la gaarsiiyay gobolka Shabeellada Hoose bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan u mahad celinaynaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala bacdigeed waxaan u mahad celinaynaa dawladda Cumaan oo hogaaminaya Suldaan Qaamuus bin Saciid iyo shacabkiisa dhammaan oo nooga timid deeqdan oo ka kooban ilaa iyo 10 items oo kala duwan bariis bur sokor wax saasa ilaa iyo 10 qayb waaye timir afurkana ay ugu talagaleen bishaan Ramadaan inay dadka Soomaaliyeed afuriyaan oo mahadsantahay ilaa iyo imisa qoysa ka faa'iideystay maanta Marka والله waxaa ka faa'iideystay ilaa iyo kuman iyo dhowr qoys ayaa ka faa'iideystay oo ah dadkii ugu dhibaatada badnaa ee mudnaa in la gaarsiiyo macaawinada sida arkaysaana waa u jeedaan dad curyaamo ah dad aan indha lahayn dad gurguuranaya dad waayeela ah inay ay ka koobnaayeen dadka qaatay marka waxaan aad ilaa 7500 bay ahayd waxaan aad ugu faraxsanahay marka in ay gaareen dadkii ugu saxsanaa waxaan u mahad celinaynaa subhanahu wa ta'ala bacdiga Suldaan Qaamuus bin Saciid waa mahadsan deeqdan meel kale gaarsiin doontaan oo aan magaalada Marka waa wadnaa deeqda ma dhamaanin waxaan u qaadnay ilaa iyo gobolada waxaan ku yiraahdaa koonfureedka Kismaayo waa jiraan ilaa iyo maaragtay haddana waxaan soo dhameynay magaalada Muqdisho guud ahaan iyo degmada Afgooye marka waa wadnaa Suldaan Qaamuus Allah ka jazaa mariyo wabillahi tawfiiq xildhibaan Xuseen Caraala Cadaan oo isna kamid ah mudanayaasha baarlamaanka isla markaana kamid ah wafdigii uu horkacayay wasiir ku-xigeenkii hore ee wasaaradda maaliyadda Mukhtaar Sheekh Shute ee maanta gaaray degmada Marka ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa isna ka warbixiyay deeqdani maanta la gaarsiiyay dadka ku dhibaataysan gudaha magaalada Marka waa bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillahi rabbil caalamiin ilaahay waa mahadle maanta waxaan joognaa Shabeellada Dhexe Shabeellada Hoose ayaan joognaa deeqdan ay maaragtay soo gaarsiiyeen dawladda maaragtay ummadda Soomaaliyeed ugu talagalay dawladdii soo gaarsiisay waa u mahad celinaynaa ugu dambeyntii maamulka degmada Marka ayaa iyagana ka waramay deeqda ka timid dawladda Cumaan macnaa intii dawladda qabsatay waa deeqdii u horeysay ee soo gaartay shacabka degmada Marka waana ku faraxsanahay deeqdan ay noo soo dhibeen dawladda Cumaan marka waxay farxadeedu maanta maraysaa 100% waa u jeedin hadaan maamulka degmada wax dhiba kama dhicin waa markii ugu horeysay oo ma laga bixiyo raashin aan weligeed Allah aan lagu arkin aad farxadna dadka kale waxaan u sheegaynaa oo sida hay'adaha UNDP waxaan u sheegaynaa inay magaalada yimaadaan wax muxuu ahay takimi jir dhibaato ah waxna ma qabno barwaaqo waa meeshan kalluunkeena waa u jeedin badayna taaganahay alxamdulillaah rabbil caalamiin wa salaatu wa salaam ala rasuulillah aad iyo aad waa mahadsantihiin waxaan u mahad celinayaa ilaahan u mahad celinayaa tuma waxaan u
mahad celinayaa dawladda Cumaan ka bacdi NGO-ga Sheekh Cali Maya aad iyo aad u mahadsan yahay waxaan ahayn degmo la iloobay oo dawladdii ay ilowday NGO-yaasha ay iloobeen hay-adihii ay iloobeen oo u soo gurmaday dadkii u dhashtay degmada boqolaal qoys oo ku dhaqan magaalada Marka ee xarunta gobolka Shabeellada Hoose ayaa waxay ka faa'iideysteen deeq cunno oo ka timid dawladda Cumaan iyadoo deeqdaasi la soo mariyay hay'adda Sheekh Cali Maya Foundation deeqdani ayaa waxa ay noqonaysaa deeqihii ugu horeeyay ee soo gaara magaalada Marka ee xarunta gobolka Shabeellada Hoose tan iyo intii ay dawladda Soomaaliya gacan ku haynteeda la wareegtay qayb ka mid ah magaalooyinka ku yaala gobolka Shabeellada Hoose Awil Abukar Maxamed telefishinka caalamiga Royal magaalada Marka ee xarunta gobolka Shabeellada